gabar ayaa waxay soo weydiisay xajigeyga ayaa qiyaamay ama qiyaano qoyseed ayuu igu sameeyay ama aan ku qabtay maxaa sameynaya inuu ku qiyaamo ama aad ku qabato inuu naaga kala shukaansanayo maxaa keeni karo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabteeda qaaliga isku soo noqod wanaagsan insha Allah maanta waxa ka hadlaynaa mowduuc xasaasi ah oo inaba caadi ahayn. gabar ayaa waxay soo weydiisay xajigeyga ayaa qiyaamay ama qiyaano qoyseed ayuu igu sameeyay ama aan ku qabtay maxaa sameynaya maalmaha soo socda insha Allah isbuuc walba mowduuca iskal mowduucaas su'aalaha aad qabtiin Instagram-kayga idin wadaaga waa kaasa ayuu soo diri doontiin su'aalaha aad qabtiin ana waa soo fadhiisan doona isbuuc waxa iskala qoyska arimaha qoyska inaa su'aal iga soo weydiisin aad kaga soo jawaabo isbuuc waxa iskala arimaha caafimaadka isbuuc waxa iskala dhanka dhiirigelinta iyo shaqooyinka gabdhaha isbuuc waxa iskala maalmaha qurxinta waxyaabaha soo hoosgalayo idin insha Allah saasa ku socon doona isbuucan waxa iskala cuntooyinka maanta waxaan ka hadlayaa qiyaanada qoyska ninkaaga inuu ku qiyaamo ama aad ku qabato inuu naaga kala shukaansanayo maxaa keeni karo. horta marka hore ninka inuu naag shukaansado wax weygu uu shukaansanayo ayaa marka hore fiirinaa. qiyaano marka laga hadlayo qiyaano waxa ani taariif ahaan u aqaana inuu ninka sameeyo wuxuusan Ilaahay raali ka ahayn oo soo isgalay naag ajnabi ka inuu maanta dhan waqti siiyo oo waxyaabo aan Ilaahay raali ka ahayn ku hadlo hadal macaan uu kula sheekaysto ama ayadaba ay kula sheekaysto sawir qaawan in la isku diro waqti badan uu siiyo gabadha kale isla markaana gabadha xaaskiisa aysan helin. haddaba maxaa keeni karo in ninka uu qiyaanadaas oo kale ku dhaco way yartaa inay gabdhaha qiyaanada sameeyaan waa dhif iyo naadir hal ayaa laga helaa gabdhaha muslimaadka maadaama muslim aan ahay ani waxa ku soo koobayaa 4 qodob in ay keenayso qiyaanada ninka in uu ku dhaco. qodobka ugu horeeya oo ah iimaanka ninka oo daciif ah iyo ku xirnaanshaha Ilaahay oo aad u liito. ninka markuu Ilaah ka fog yahay oo Ilaah ku xirneen oo Ilaah ka xishooneenin adiga oo bin aadan ah kaama xishoonayo oo adoonka Ilaah ah hadduu ninkaaga cibaadadiisa ay xun tahay salaadiisa ay xun tahay waa qodobka ugu muhiimsan oo keenaya ninka in uu wax walba oo Ilaah raali ka ahayn uu sameeyo ama adiga waxaad raali ka ahayn uu sameeyo. qodobkaas inaa marka hore iska fiirisid hadaa ku aragtid ninkaaga inuu qiyaano sameynayo waa dicfiga iimaankiisa oo daciifsan. qodobka labaad waxa keenayso ninka in uu يعني soo dhaxlay oo dhaxal ahaan familku uu ku soo karo uu arkay abtigiisoo naaga qiyaamay ama naaga shukaansanayo ama aabihiisoo naaga shukaansanayo oo hooyadiis ku qiyaameenayo oo kale ama walaalihiis ka waaweyn oo waxyaabahaas ku soo arkay dhaqan ahaan ee taasna ku soo guurin kartaa. qodobka saddexaad waxa waaye waa social media oo aad u batay bariyahan badan oo gabdho badan isoo qaawinayaan isoo dhigdhigayaan laga yaabaa gabdhahaas uu arkaayo quruxdooda inuu adtaada uusan arkeenin ama aad ka mashquulsan tahay ama waxa laga yaabaa oo kale calaaqada sariirta marka laga hadlayo calaaqa jinsiya oo halaado taasna waxay keenaysaa ninka inuu qiyaano sameeyo sababtoo waa waxa ugu muhiimsan reerka marka laga hadlayo loona baahan yahay inuu qofka aqoon u lahaado gabadho kale inay barato calaaqada sariirta si fiican inay u barato wiilkan inuu si fiican u barto in la isku sheego oo kale waxa laga yaabaa waxyaabo inuu social media ka soo arkay isla markaasna uu haweysanayo inuu waxa soo kale gurigiisa ama xaaskiisa uu ka helo kadibna uu waayo isleeyahay xaaskaaga waxyaabahaas ma awoodo ama ma sameyn karto oo kale gabar kale ama ka heli kartaa. teeda kale gabadha naftirkeed ayada waxa looga baahan yahay calaaqadaas in si fiican u barato baxthi ay ka sameyso raadiso waxyaabaha ay dareemayso kale xajigeeda ay la wadaagto asina sidaas la mid ee gabadha waxyaabaha uga baahan yahay in uu arko ama uu jeclaan lahaa inuu xaaskiisa la wadaago uu u sheego. taas marka waxa waaye dhanka isbedelka lamaanaha ama gabadha inaysan aqoon u lahayn dhanka ninka ee isu jiidan lahayd dhanka labiska oo taqyiir inuusan jirin ama isbedel uu jirin oo kale haddii nolosha ee sida maalinta uu ku soo guursado aad tahay isla maalinta maanta taaganta aad tahay waxa loo baahan yahay routine ama wax isbedel oo dhadhan u yeelay noloshin inaad sameeysiin tusaale ahaan oo kale dharka aad ku labisan jirto oo kale inaad iska bedeshid talooyinka oo yacni burku qiyaam maxaa sameynaya waa u soo laabanaya laakiin waxyaabaha keena hadda ka hadlooya waa qodobka saddexaad
qodobka afraad qodobkaas asna waxaa keenayo pressure badan oo nin kala saaro amni inuusan dareemeynin ama xorriyad inuusan haysanin laba shay ayaa muhiim ah gabadha waxay u baahan tahay inay ihtimaam ama daryeel ay hesho ninkana waxaa muhiim u ah inuu helo xorriyad hadduusan xorriyad heleynin oo pressure asaaraysid intee ka timaaday halkee u socotaa kibir ay rag qaar u sameeyaan inay gabdhaha u shaqaansadaan ayagoo rabitaan dumarnimo iyo dareen uusan ka ahayn laakiin inuu adig kugu madax jibiyo u sameynayaan afarta qodob hadda soo koobo waa qodob iimaanka qofka oo daciif ah oo ilaahay inuusan ku xirnayn qodobka labaad oo ah in calaaqada labadiina idinka dhaxeyso jinsi ahaan marka laga hadlaayo iyo sexual marka laga hadlaayo iyo isbedelba inaysan uu isbedel jirin iyo qodobka saddexaad oo ahaa dhaxal ahaan inuu usoo gaaray ama familkooda waxyaabahaas uu kusoo arki jiray qodobka ugu dambeeya oo ahaa pressure in nin kala saarayo ama xorriyad uu dareemayn afartaas qodob waa ugu muhiimsan afarta qodob oo keeni karaan in ninkan uu naaga badan shukaansado way qodobo badan yihiin laakiin afarta ugu muhiimsan oo badanaana dhaco oo soo noqdana waa afartaas haddaba ninkaaga ayaa waxaa ku aragtay asoo naag shukaansanaya maxaa samaynaysaa tilaabada koowaad horta weyga ku aragtay aa muhiim ah adi maa raadisay oo jaajuustay mise ayadaa kusoo raadsatay wixii oo adi waxa adi gacmaha ku raadsatay ma ahaan tala ku siinaya haddii adi waxaan aaraasatay oo jaajuusnimo aa samaysay ama moobeelka aa jibisay ama moobeelka aa fiirisay ama aa daba gashay waxaa kaaga digayaa inaa adi daba gashid oo isla markiiba aa isqarxisid oo dhaadid waxaana kugu arkay waana anaana moobeelkaaga furay anaa fiiriyay taas waxay keenaysaa kala fogaansho zaa'id ay sii keenaysaa iyo khilaafka inuu sii bato baawarna ma helaysid ama wax aa ku doodid awood aa ku doodid ma lahaan doontid sababtoo ah adaa eedda lagu saari doonaa adaa wax walba qaladka lahaan doontid waxaa ku sheegaya marka haddee dhacda in yani aasas samaysid horta marka hore walaa tajassasu ilaah quraankiisu ku leeyahay in qofka aa jaajuusid ama aa dabagashid ama aa faafaagtid xaraam waaye diinteena naga nahjisay waxaa qurux badan marka inaad faraha ka qaadid oo wixii kusoo raadsado aad kula xisaabtantid qodobkaas markaa meesha ugu soo gudbo qodobka labaad waa aragtay wixii adimaa raadsan tusaale ahaan oo kale moobeelkiisoo xiran koraa waxaa lagu soo diray masajo kor ka akhrisay oo kale ama adiko is agjiiftiin oo kale in message ama video lagu soo wacay ama wax aad aragtay amaba inaa si kale ku aragtay okay laxdada aad aragtid taas waxaa kuugu talin lahaa inaa toos aa u sheegtid inaadan waqti aadan siinin inaadan dhihin waa sugayaa ilaa maalmo aadan isku caburinin inaad toos u abaartid su-aashaasna aa weydiisid adigoo isdejinayo weliba aanan dagaalamaynin hadalkaagan uu miisaaman yahay laakiin marka aad qaylinaysid ama aad dagaal gelaysid wuxuu ku arkayaa oo keliya inaad tahay qof dagaalamayo oo xanaaqsan maseersan hadalkaagana qof waalan oo kale laga soo qaadayaa si xikmadaysan ula fadhiiso una sheeg in arrin daruuri ah aad kala hadlaysid wada fadhiista waqtiga arrintaas aad u sheegaysidna waxaan kugula talinaa inay ahaato waqti degan markaas uusan shaqada ka imaanin hadduu shaqada ka yimaado ha nasto intuu nasanayo xitaa sug sababto ee markuu uu asoo nasanin imaado haddaa problem ku bilaabid waa marmarsiya ku imaanayso oo kale waa daalanaha oo kale mawduucaas ma ka hadli kari laakiin waqti si ha nasto waqtina siina oo kaliya si markuu nasto kadib ama haddii uu problem family problem jiro oo kale ama dhibaato ay jirtana ayadana waa sugaysaa laakiin intaas wixii kasoo hore waxaa waay miiska maxkamadda la fadhiiso weydii marka waxaa weydiina ani maxaa ii qiyaantay maxaasaa in yeeshay gabdho badanaa waxay isdhahayaan ama aaminsan yihiin ninka markuu qiyaamo inay foolxuntaa ayada inay dhib yani waxyaabo u keeneen oo kale weydii sababta marka koowaad waxaa weydiisaa intaadan su-aashaas weydiin waxaa fiican inaad dib aada iskugu noqotid maxaa kaa qaldan maxaa kuu hagaagsan maxaase keenay waxaas inaa isweydiisid sababta inaad mar walba ogaatid sababtana waxaa ugu sii muhiimsan calaaqada kala dhexeyso ilaah iyo asi sida ay tahay adiga laftirka calaaqadaada iyo ilaah idinka dhexeyso inaad fiirsid haddii calaaqada adiga ilaah idinka dhexeyso ay xun tahay mawduucaas wuxuu u baahan yahay oo keliya in calaaqadaas aad soo saxdiin wax walbana way hagaagayaan waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofkii xuskayga ka jeesto ama aanan i xusin waxaa u sugnaatay nolol ciriiri badan mar walba inaa aayadaas soo xasuusitid okay weydii sababta una sheeg mar walba inay tahay karaamadaada karaamadiisana ay tahay karaamadaada oo zamankan waxaa joognaa zaman oo yani fadeexada ay aad usii badanayso hadafkaaga iyo meesha aad ka duulaysidna ha noqoto in aad abaartiin dhanka wanaaga oo keliya oo aysan noqonin inaad isku duqaysin oo kale
marka aa wada hadalka samaysiin oo si degan aa ula hadashid waxaa haddana talada labaad ee tahay isbeddel noloshaada inaad ka samaysid haddii aa ahayd qof qaylo badan iska dhaaf haddii aa ahayd qof mashquul badan xoogaa yar waqti yar sii haddii aa ahayd qof aad ugu dhow taas si fiican ugu soo celcelinaa qof aad ugu dhow oo sanka ka galgasha ninka qabo qaal noqdaya haddii noocaas aa ahaydne xoogaa bareeg isku qabaa ku dhihi lahaa isbeddel inuu ninka dareemaa loo baahan yahay nimanka marka laga badbadiyana ma dareemaan dareen oo dhan ma ku qaadaan ihtimaamka zaa'idka ahna ragga ma jeclo yani ina maanta oo dhan sanka ka tirtid afka ka tirtid daba socotid yani waxa ihtimaamka u baahan gabadha waaye ninka wuxuu u baahan yahay xurriyad in la siiyo haddii aad tahay nooca maseerka badan oo maanta dhan telefoonka ku ordane waxaa kugula talinaya 100% telefoonkiisa inaad nabadgelisid furihiisa aadan fiirinin wuxuu uu ku sameeyaa si karbigiis adiga maalintii aa wax indhahaaga ku aragtid ee ku yimaadaan maalintaas baawarka leedahay inta ka horeyso hadda wagelina ku dhigi lahaa karaamadaada iyo qiimahaaga ka weyn ina mobile phone aad daba orodid maanta oo dhan iskala weynow taas ku dhigi lahaa kuna mashquul wax noloshaada horumar geenaayo ama ku sii horumarinayo gabaray qodobka ugu dambeeyana waa ducada ina mar walba salaada aad tukatid ilaahay aa weydiisatid inuu ninkaaga ku xifdiyo ku dhooro adigana aad dhoorsatid mar walbana ilaah ku xirnaatiin waa idin jeclaa asxaabteeda qaaliga ah waxaan rajeynayaa talooyinkan in ay wax un ka faa'iidi doontid insha Allah mawduucyada noocan oo kalena waa aan ka wada hadli doonaa haddii aad qabtid su'aalo noocan oo kale ah isbuuc walba waa ii soo diri kartaa dhanka Instagram-kayga ah hoos idinkaga soo sheegay insha Allah aad oo mahadsantiin asxaabteeda qaaliga ah wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.